بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انت أنا ندرس كبلابن waxaan isku dayi doonaa inaan mowduucaasi ama waxaa ku saabsiisan atheism ama ilxaad iyo doodihiisa inaan wax idinka tilmaamo. waxaanan in sha allahu tacaala isku dayi doonaa inaan wax badan oo laga sheegay wax ka mid a soo guuriyo. wuxuu noqon doonaa marka haddii la yidhaahdo derisku laba muqadamo ayaan horeysiin doonaa. muqadamo waxay ka warramaysaa ilxaadka iyo taariikhdiisa. muqadamana waxay ka warramaysaa casrigan aynu joognayo halkuu marayo iyo usuusha uu ku fadhiyo ama uu ku salaysan yahay iyo qaabka looga jawaabay. kadib waxaan geli doonaa lubul mowduuc oo ku saabsiisan inaan soo bandhigo iyadoo si kooban ah atheismka iyo waxyaabo uu daliishado iyo qolada theistiska ah ama mu'allihiinta ama mu'miniinta iyo ilaa 5 argumentiskooda ka mid ah. waxaan ka cudur daaranayaa waxaan akhriyay ama qoray ama ka warramaya waa wax isugu jira afaf badan oo kala nooc ah. saa daraaddeed waxaan isku dayayaa inaan ku midayo af soomaali. yani waxaa laga yaabaa qayba inay carabi ku qorayiin, qayba ingiriisi ku qorayiin, laakiin waxaan isku dayayaa inaan ku midayn karo af soomaali. mowduucan markaan ka hadli doono in sha allahu tacaala waxaa laga yaabaa inaan dhex gallo terminology ama mustalaxaad funuun kala gedisan ku saabsan. waxaa laga yaabaa terminology philosophy inaynu adeegsano, terminology scientific inaynu adeegsano, terminology theology ama diin inaynu adeegsano. terminolojyada marka la adeegsanayna waxaa loo baahan yahay qofku inuu background ka haysto, inuu fikradda fahmi karo. wixii aad fahmi weydaan markaasi waxaan diyaar u ahay in la weydiiyo oo aan isku dayo inaan jilciyo intii aan jilcin karo. waa marka saddexaad waxaan adeegsan doonaa dad badan oo kala nooc ah aaraadood ama buugaagtood. macnuu maaha inaan dadka ammaanayo ama buugaagtooda leeyahay ha la akhriyo, macnuu maaha. weedha iga anfacday unbaan ka qaatay, laakiin waxaa laga yaabaa inaanan buugga iyo aragtidu ka warramayaba ku qanacsanayn. dadku inta badan waxay isku dayaan qofku referenceska uu tilmaamayo waxay moodaan inuu fanniga maraajicu yahay oo ay dib u raacaan. marka ka saddexaad waxaan ka warramaynaa waa atheism, waa ilxaad. waa qof le ilaahay ma jiro iyo cidla wuu jiraa. marka waxaa laga yaabaa qaarna inaan ku tilmaamno inay mu'miniin yihiin, qaarna inaan ku tilmaamno inay mulxidiin yihiin. mu'minku mu'minkii qur-aanku sheegaya isna maaha. yani markaan tilmaamayno kuwa ilaahay rumaysani waa kristan, waa muslim, waa maxaa la yidhaahdaa yahuudi, waa kuwa supernatural aamusan ama theismiska ama deismka kuwan la yidhaahdo. waa dad badan oo adyaanta iyo afkaartay rumaysayin kala gedisan yihiin, laakiin hal qodob ku midaysan: dunidan inay rabbi abuurtay leedahay, ilaahay inay leedahay abuuray. marka mu'minka bugaagta qaarkood waxaa laga yaabaa markaad akhrido oo mu'miniin ka warramayo, mu'minku sheegaya waa aristo, waa plato, waa aristotle, waa yani dhammaantood mu'miniin bay bihada tacbiir. marka hadhow iyo iskaga keen qaldamin marka nimankaa mu'miniin lagu sheego ha u qaadanin mu'minkii kitaabku ka warramaya. ama maalan kitaabkan la yidhaahdo kale qisat aliimaani bayna alfalsafa waaliimaani waalcilm, 10 filosof buu ka warramayaa, 2 mulxidiin iyo 8 uu leeyahy waa mu'miniin. 8 uu leeyahy waa mu'miniin dee waxa weeyaan waa Thomas Aquinas, waa Immanuel Kant, waa Aristotle, waa Plato, waa kuwa mu'miniintiisu.
waayo waa kuwii rumaysanaa ilaahay jiritaankiisa. marka waxaan uga jeedaa mustalaxaadka badan ee aan sheegi doonaa iyo iskaga kiin dhex qaldamin oo kuwii kitaabka qur-aanka ku qoraa ma noqon doonaan. sessionskaasi labada muqadamo iyo 5 ama 4 argumentka marka aan sheego waxay qabaan maalan qolada atheistiska ahi waxay qabaan iyo kuwa muuminiintii waxay qabaan labada groupba markaan sheego waxaan ka warrami doonaa adiladooda waxay daliishadeen argumentkooda maxaa u daliila. waxaan kaloo ka warrami doonaa al-iraadaat wal-i'tiraadaat waxa la yidhaahdaa argumentka maxaa lagaga jawaabay hadday se jawaabi jirto maxaa lagaga jawaabaya argumentkaas. yani waxa laga yaabaa kuwa muuminiinta inay wax sheegtaan waxaasaa noo daliila, qolada kale inay tidhaa waxaasi daliilidin maaha waxaa bushinaya shayga iyo shayga iyo shayga, idanka kalena waa ka jawaabi doonaa. marka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa silsilo dheer inay kugu noqoto oo aad mentally hore u daashid. waxaan idinka codsanayaa intii la daali karin inaan la daalin, laakiin waxaan isku dayayaa intii aan soo koobi karaba inaan soo koobo, waayo waa mas'alo aan u arko inay wax badan waadix tahay laakiin muranka lagu badiyey. marka muqadamaadka tii koowaad baan bilaabay insha allahu tacaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الإلحاد أما atheism كلمة atheism لا يراهدا و atheos بيكتمي of Greek theos of Greek و goddess أما god أما الآلهة إله haddii la raaciyana waa without. marka atheism macnaheedu waxa weeyaan without goddess, waa cid leh ilaahiyo ama ilaah kaa doontaba dhehe ma jirto. eraygaasi marka aynu qaadanno ilxaadka loo yaqaano, marka diimaha dhexdeeda la joogo waxaa laga yaabaa ilxaadka dad badan in lagu tiriyo, laakiin really maaha kaynu inagu u dan leenay. مثلا أفلاطون بلاتو أفلاطون وحو قبا 3 نوع إلحاد كميدا جرا. إلحاد كواد وإنو يراهدو قفكو إله مجرو أما ربي مجرو أما إله نما مجرتو. إلحاد كاللباد بولي وإنو ربي جريتان كيسا وقلادو لكن العناية الإلهية إلها سي إنو انترفير قرأيه ودونيدا معمولو إنو ديدن يهي. nooca saddexaad oo isagu qaba waxa weeyaan waa ilxaad alqaraabin buu leeyahay, kuwan wax gowrgowracaya kaanama aalihada laaluushayaan, isna waa nooc min alilxaad buu qabaa. laakiin eraygu hadda wuu soo koobmay. maadaama uu eraygu soo koobmay dhowr eray baan rabaa inaad kala saartaan. waxaa la yidhahdaa atheist iyo waxaa la yidhahdaa agnostic iyo waxaa la yidhahdaa skeptist iyo wax la yiraahdo non religious ama irreligious iyo waxa yiraahdaan antitheist. dhammaantood macnayaal kala gedisan bay tarjumayaan. atheist markaynu nidhaahno macnuhu waxa weeyaan wuxuu rumaysan yahay supernatural inaanu jirin, wax ilaah la yiraahdo dunida tan sameeyay haba yaraatee inaanu jirin. marka la yiraahdo waa agnostic, agnosticska waxay yidhahdaan ninkii ugu horreeyey eraygan lagu nabo ee isticmaala waa Thomas Huxley. Thomas Huxley ciidamada ka taqaanaa. Thomas Huxley waxa weeyaan waa doodaagii ugu weynaa ee u doodi jiray Darwinismka. waa Darwin saaxibkii, waa usro qoys mulxida baa ku abtirsada. caruurtu awowga u yahay waxaa ka mid ah Julian Huxley. Julian Huxley isna waa mulxid kale, waa ninka qoray buuggan la yidhaahdo Man Stands Alone. bini aadamku keligii buu istaagi karaa, ilaah iyo waxba toona uma baahna. waa ninkii koowaad ee u noqda UNESCO madaxweynaheeda ama BHA diina British Human Assembly humanism kan
Great Britain ay leedahay waa first secretary koowaad ee loo doorto waa mulxidinta waaweyn waa mulxid ku abtirsaday mulxidka weyn ee aabihii ama awowgii Thomas Huxley loo odhan jiray wuxuu caan ku yahay loo yaqaanaa the bulldog of Darwin bulldog waa taqaanin Soomaha eyga kan afka ballaaran leh foosha xun leh kalbi الحراسة waa Darwin bulldogiisa bay ku tilmaamaan ayaa 1869 meelahaas afilaya buu lecture jeediyay dabeetana wuxuu isku sifeeyay inuu yahay agnostic waa waxa genosis of Greek waa knowledge haddii la raaciyana without knowledge markaa macnaheedu waxa weeyaan alla adri kuwa la yidhaahdo af carabiga isagu wuxuu leeyahay inuu ilaah jiro iyo inaanu jirin anu garan maayo isagu markaa safkana ma raacsisna waxaa laga yaabaa inaad aragto kuwa mulxidiinta kuwa radinaya مثلا Richard Dawkins waa kan mulxidkiinan Ingiriis Oxford jooga waa kan buuga qoray la yiraahdo maxay God delusion ma la yiraahdo wahmu lilah kan radinaya waa David Berlusconi devil's delusion buu qoraysna wala adri waa agnostic laakiin isagu wuxuu leeyahay anigu one thing baan certain ahay buu leeyahay inuu ilaahay jiray inaanu jirin ma ogi laakiin waxaan certain waxaan hubaa buu leeyahay qoladayada science-ku waa professor of mathematics qoladayada science-ku inaanan cadayn karin inaanu jirin buu leeyahay marka waxaan uu sheegay buu Richard Dawkins wuxuu sheegay waxba kama jiraan buu leeyahay waxaan hubaa science yahan inaanu cadayn karin ilaahay inaanu jirin buu leeyahay laakiin inuu jiray inaanu jirin uma kala ogi buu taagay bugiisa aragtidaas ku bandhigaya idan agnosticsku waa qolale la adri ma ogi waxaa jira group kale oo kuwa ka gadisan oo skepticism humanism baa kamida skepticsku waa mutashakkik waa shakaakiin iyagu inuu jiray inaanu jirinba ma taagnay bini aadamku inuu xogaan kariyo inaanu xogaan karin baa muran kaga jira mas'alada cilmi dhamaanteed wuxuu diidan yahay waxa loo yaqaano al-awliyat al-ilmiya ama waxa jira wax la yiraahdo axiomku waa aragtida science-ka iyo xisaabta iyo waxa dhamay ku salaysan tahay oo ashyaa aan u baahnayn in proof loo raadiyo oo aqliya ba jira bay leeyihiin the logic philosophy mathematics science all this waxay ku salaysan qadiyadatan yani shayga yar iyo shayga weyn inuu ka weyn yahay kan waa mas'ala aqliya bay leeyihiin daliil uma baahna kow marka lagu daro inay laba noqoto daliil uma baahna axiomisku waa waxa luqada carabiga la yiraahdo al-adilla al-bidaiya ama al-badaha ay ku tilmaamaan waa wax qofka caadiga ee bini aadamkiisu aan wax baranin wax loo dhigayna aanu jirin maanka caadiga uu garan karo iyagu waxay taagan yihiin qayb ka mid ah skepticismku waxay taagan yihiin aniga waxaan ahayni ma jira mise ma jiro I don't know bukule inaad adigu jirto iyo inaad jirin waayo xulay waxa aan sheegayo dhami maskaxdayda sawirta marka waa sawir maskaxdayda waxa laga yaabaa buu leeyahay haday baranbara ku eegto in iyaduna si kale ku arkayso therefore anigu xaqiiqada ma garan karo oo xaqiiqadu exactly waxay tahay ma garan karo si awgeed iyagu waxay diidan yihiin awlawiyat al-ilmiya iyagana skeptics ama skepticism baa lagu tilmaamaa haddaba inagu waxaynu u soconnaa groupkan is adkaynaya ee la yidhaahdo atheist ama ilaah ma jiro tilmaamaya markaynu taariikhda dib ugu noqonno atheismku waagii hore wax yar buu ahaan jiray afraad qof individuals ummad atheist ahay taariikhdu ma hayso taariikhda bini aadamka oo dhan kuma jirto ummad atheist ahayd waxa lagu tilmaamaa taariikhda bini aadamka marka laga waramayo waxa qoran ee la arkay ee atheismka aaminsan philosopherskii ugu horeeyay la tilmaamo waa Democritus ninkan le atom theory-ga
ومحل هذا إبوكراس دليل كأي أنت بدن إلا هدا أديك سدان اللي هذا ديفلس أرجومنت دليل الشر أي ولي أديك سدان ونكي لها لكن أفراد بيهاي قف ولا ضاف فيلسوفرسكي هوري waxa ka dambeeyay filosoferskii muwaxidiinta lagu sheegayo ama muuminiinta lagu sheegayo Aristotle Plato kuwaasi oo iyagu rumaysanaa ilaahay iyo jiritaankiisa iyagu dhamaantood wada rumaysanaa saddex filosofa ugu caansan falsafadii Greego saddexduba waxay rumaysan yihiin ilaahay iyo jiritaankiisa marka la soo gaaro qarnigii 18aad ayuu soo shaac baxay inay badato waxaan atheism-ka la yiraahdaa ha badatee haddana mar kastaba dunida waxaa ka badan theistiska saawgeed waxay yidhaahdaan estimate la sameeyey matalan 2007 2.3 ayaa ah bay leeyihiin world population-ka ayaa ah atheist 2.3% dunida oo dhan marka la isku daro ayaa ah bay tilmaamayaan bale waxaa la tilmaamaa haddii laakiin non religious oo dhan la isku wada daro kuwa atheistka kuwa agnostic-ga kuwa skeptics-ka wax oo dhan haddii la isku daro waa less than 12% bay yidhaahdaan مثلا labada hay-adood ee ugu waaweyn ee dunida samayn jiray ihsaa'iyaadka tirakoobka statistics-ka sameeya win qolada la yiraahdo waa worldwide independent network iyo GIA waa gaalubka qoladii la Gallup International Association 2000 way isku darsadeen labadii ugu waaweynaa 2012 kii baan filayaa 2012 waxay qaadeen iyagoo ay leeyihiin cayinadii ama dadkii aanu weydiinay si noogu jawaabay 13% ayaa noo sheegtay inay atheist yihiin other studies waxay sheegayaan مثلا The Week jaridada la yiraahdo Mareykanka ah waxay tilmaamaysaa in Mareykanka gudihiisa 1.5 ilaa 4% ayaa ah bay leeyihiin atheist ah waxay tilmaamayaan مثلا Mareykan ihsaa'iyaadka laga qaado dhamaynta ugu badan cid dhaafisa 4% ma jirto laakiin Europe bay ka badan yihiin atheists waxay ku badan yihiin labada Europe مثلا Eurobarometer la sameeyo zerfeeyadan Europe ay samayso oo EU-du samaysay 2010kii EU-du ihsaa'iyaadkay samaysay waxay tilmaamaysaa 20% ama boqolkiiba 20 population-ka Europe ayaa waxay sheegtay not to believe in any sort of spirit or God inaanay wax ruuxaaniya ama wax ilaaha rumaysnayn boqolkiiba 20 ayaa Europe sheegtay tirakoobyada marka aan tilmaamayno gruubada qaarkood waxay jecel yihiin inay isbadiyaan oo 1772 Baron Holbach filosofkii la oran jiray wuxuu leeyahay caruurta oo dhami buu yiri waxa laaliyo waxaan qaan gaadhin oo dhami waa atheist waayo iyagu waxba kama oga buu yiri ilaahay marka haddii kuwaanana lagu dara buu leeyahay tiradayadu intan ay sheegtaan way ka tira badan tahay waxaa la mid ah George Smith oo 1979 isaguna wuxuu leeyahay the man who is unacquainted with theism is an atheist because he does not believe in a God cid kastoo aan caqiido loo dhigin oo dhalinyaray iyagana waxay ku tirsan yihiin buu leeyahay groupkayaga waxay kaloo tiriyaan oo yidhaahdaan waxaa kaloo naga mid ah bay leeyihiin abatheismku maan sharxin abatheismku waxay yidhaahdaan waa pragmatic atheism ama si kale markaynu u tilmaamno waxa weeyaan wuxuu u nooliyey sidii oo aan ilaah jirin isagu kamaba fakaraya ilaahay ma jiro doodaha kumaba jiro laakiin wuxuu u nool yahay noloshiisu qaabkay tahay waa wuxuu u nool yahay kaanahu inaanu ilaah jirin ama wuxuu jeclaan lahaa inaan ilaah jirin qaab abu u nool yahay kuwaana markana lagu daro buu leeyahay
intaasoo dhan marka la isku kaayo daro tirada iyadu intaa sheegaysaa waa ka badantay. laakiin buggan maraykanku qoro ee la yidhaahdo world fact book ee xisaayaadka caalamiga ka warrama, world fact book isagu wuxuu ku tilmaamaya 2.01% 2010kii xisaayaadkooda waxay leeyihiin intaas baa ah dadka loo yaqaano atheist ama aan odhan karnaa ilaahay ma rumaysna. si kale markaynu u sheegno atheismka waa la kala saarsaaraa. tacaabiir baa arki doontaan bugaagta ka warramaysa, qaar ay yidhaahdaan positive atheist iyo qaar ay yidhahdaan waa negative atheist iyo qaar ay yidhahdaan waa strong atheist iyo qaar ay yidhahdaan waa implicit atheism, strong or weak, implicit or explicit. kuwan markaynu isku darro erayadan qaybo ka mid ah waa kuwa isticmaali jiray mulxidkii ugu weynaa ingiriiska ee la odhan jiray Anthony Flew ee markii dambe isagu qirtay in ilaah jiro. 65 sannadood buu rumaysnaa inaan ilaah jirin. doodihii ugu badnaayee ay galaan atheistisku waa ninkii gelayay. doodoodii koowaad ee 1950gii Cambridge University lagu galay waa odaygii matelayay. aakhirkiina waynu ka warrami doonaa wuxuu ku dambeeyey. ayaa waxay leeyihiin qoladaasina waxaa jira positive atheist iyo negative. positive atheistku waa ninka strong atheistka ay ku tilmaamayaan ama waa explicit atheistka ay ku tilmaamayaan. waa qof u taagan oo rumaysan inaanu jirin ayuu adilo raadinaya. ama implicitka iyo negativeka iyo wiigu waa kuwa kale bay leeyihiin, ama le anigu ma oga inuu jiriyo inaanu jirin, ama le u nool sidii waxaanu jirin iyo wixii la mid ah. markaan soo duuduubo atheismka oo aynu ku tilmaamayno inuu dadka tirada yar yahay, waa dhaqan ku gaara baynu leeyahay Yurub iyo intii wax ka qaadatay. maxaan uga jeedaa? مثلا الحضارة الإسلامية أما عالم الإسلامي أنتو سوتشري يا هريل يقاني وح إيثيست اللي هذا مجرين والله يابا كتب تهدنا هنا كو أركتان فلان وملحد أما وكذا يدو للي لكن وحين لنا يواي الحاد أنا هين الحاد كان إله نمديتك سادر مثلا ابن الرشد أيوه حلايا عربي لما أنت دوي اعتراف سنيد بوجود الباري قرآن كان هذا ويدن كاركي مشركين تهدي الله إلى من خلق السماوات والأرض الله يقولن الله هنا القرآن كبوحده. الشهرستاني وكتاب الملل له والنحل وحاول الماما يا عربت دين لأن تدو وحي كوكوب نيدبوله إلا بمسأله بعثي مجره أما أفتر لايف مجره نولل دنبه مجرته يا الرسول مجره إلهي وجره لكن عندنا مصادر عنين لبدا فكرة دود بي قال لماذا عربت كوكوب نيدبي لي حتى إمام الآلوسي وابن كثير في تفسيرهما يوحي تلماميا حتى الدهريين تلا شيقابي لي بعث جديدنا يعني مسألة ما جديدين لكن تاريخ العالم الإسلامي مركز درس يسوي حد أركض دون تدول لي هذا الزنادقة والزنديق أما الزنادقة اللي هو شاوه الزنادقة ذو وقوة ديدا شريعة أما النبواتك ما ديدنا شريتان كان ربي لكن waxa uu diidan yahay maxay nabiga iyo wixii ka dambeeyay bay diidan yihiin. idan markaynu atheism ka waramayno caalamka carbeed iyo taariikhdiisa iyo xadaaradii muslimiinta oo dhan iyo wixii ku hoos noolaay oo dhan ma jira bay yiraahdeen fi taariikh واحد mulhid lahayo واحد mulhid lahayo macnahan aynu sheegaynay ma jiro. Yurub lafteeda Yurub gudaheeda wixii ka horeeyay 17th century waxay ku tilmaamaan Yurub gudaheeda inaanu wax badan ahayn ama aanu jirin ama inuu ahaaba insult ay inay ahayd oo qofka lagu yiraahdo mulhid baa tahay
inuu arkay qof la caayay inay ahayd awal kitaab bay yidhaahdaan buuggii koowaad ee yurub la qoro ee la bablish gareeyo ee ilxaad ka warrama waa 1778 baan filaya saaxibu thaqaafat alkufr siduu ka soo naqlinayo دكتور جعفر الإدريس في كتابه الفيزيائيون والخالق حكوت الماميان 1778 baa u horeeyay yurub buug la qoro oo ilxaad sheegta wixii ka horeeyay yurub ma aqoonin qadiyadatan haddaba waxyaabaha ilxaadka laga rumaysayay wax ka mid ah ayaan tilmaami doonaa waxay isweydiiyaan su-aal ah mulxid dhabi ma jiraa mulxid dhabi ma jiraa mise ma jiro waa qariib inaynu nahno dadka intaasa ilxaad ah haddana inaynu nahno mulxid dhabi ma jira mise ma jiro Denis Diderot waa mulxid مفكر فرنسيس أو روائية وموسوعة فرنسيس كان كي مشرف كواها ويا سوى ملحد لكن وحولي أنا قاعد إذا صدح كوحود بان كلا صار يا بولي ملحد كانوا ملحد كحقيقي كاهي بولي وأنا كلا إلهي مجرو صار رميسان دليل لو كان صنايا كاسم بان ملحد وران كرابولي أما kuwa aan ra'yiba ku sugmaynin maalinba dhan jooga shukuukiyiinta ama kuwan jecel in la yiraahdo kaanama ay jecelaan lahaayeen inaan ilaah jirin cayn qaabkaasi u nooli mulxid uma arko laakiin arrintu intaa way ka durugsan tahay maxaanu leenahay mulxid dhabi ma jira jaamacadda tan Helsinki University إليهين فينشكو هلسنكي ورتا تقانين ويوروب دولالك وقعان صن دين لأنت وليها أن ديمها الشيغانين مركا لا اسكو دردرو أوردن 28 to 60% بيدتك قارقارسيان دبتنا جامعة دا waxay doontay inay baadho war ma jira dad mulxid dhabi mise waxaan waa iska yeelyaal dadkani ma waxay jecel yihiin inay diinta iyo xuduudeeda tan iyo cibaadaadka la sheego waxaan inay ka takhalusaan oo waxaan baa u geynaya mise waa belief ah inuu qofkani aqliyan ku qanacsan yahay inaan ilxaad waxa la yiraahdaa aanu jirin yani wax ilaah la yiraahdaa inaanu jirin group kamida jaamacadda markaa ayaa waxay sameeyeen baaritaan ay hogaaminayso gabadh la yiraahdo Lindemann Mariana oo doctorate Helsinki University markaasi waxay ku tala gashay inay baadho malaaxida ma joogtaa mise ma joogto baaritaankoodii runtii wax cajiib ah ka soo baxay baaritaankoodii dhowr iyo 30 qof baa loo yeedhan rajaynaya institute ka mid ah institute-yada jaamacadda waliba Ashford jaamacadda la yiraahdo Mareykankiina way kala qayb gashay afar aqoon-yahan oo mid Mareykan iyo saddexna ay tahay Finnish yihiin oo ay gabadhaasi hogaaminayso Lindemann Mariana la yiraahdo baaritaanka sameeyay baaritaankoodii waxay leeyihiin qaab bay u sameeyeen qofka meel baa la fadhiisanayaa erayaa loo qoray 30 question ama 30 statement ayuu qofku odhanaya dabeetana waxay ku xidheen laba gacmood ama laba farood ayaa laga xidhayaa computerka waxa la eegayaa erayada markuu ku dhawaaqayo maskaxdiisu reaction-ka ay bixinayso iyo isbedelada ay bixinayso iyo waxay sameynayso siiba dee sagaashanaadkii wixii ka dambeeyey meelahana intii IMR-ga iyo PET-ga iyo qalabadan cusub ee insaanka maskaxdiisa la sawiri karo iyadoo functioning-ka ay timina waxaad moodaa neurology-ga biniaadamku aqoonta u lahaa inay aada u kacday oo u faaftay
baxthigii ay sameeyeen waxa uga soo baxay waxa aad u cajiiba waxa uga soo baxay waxay leedahay the heads and hearts of a thesis may not be on precisely the same page nimanka thesis-ka madaxooda iyo jidhkooda isku wax sheegi maayo bay leedahay مثلا ereyada la odhanayay dhe waxa ka mid ahaa waxaad tidhaahdaa ilaahayow aabbahay iyo carruurtayda iyo waxaasoo dhan madhi qofka aan ilaahay rumaysanayni ereyga markuu yidhaha waa erey laqwiyade waa waxba kama jiraan adigoo ma iska yidhi bay la mid tahay ila waa nonsense waxaad ku hadashay mar haddaanad rumaysanayn in ilaah jiro haddaad tidhahda miyo wax kaa bedelaya waa maya waa nonsense baad ku hadashay dabeetana waxay eegeen kuwa ilaahay rumaysan ereygan markay yidhaahdaan baqdin baa ku abuurmaysa the same thing baa ku abuurmaya bay leeyihin kan atheist-ka ahina markuu yidhaahdo maskaxda kan qaybta shaqaynaysa ee baqaysa kana baqaysa bay leeyihiin dareenka uu jirku sheegaya bay leeyihiin ee kanuu sheegayo the same thing buu kan kalena sheegayaa bay tilmaamayaan iyagu ninkii rabaa wuxuu ka heli karaa netka waxaa lagu faafiyey the international journal for the psychology of religion ayaa lagu faafiyey 19 February 2013kii waxa ay baxthigooda 10 page buu ka kooban yahay cidii u baahan iyadoo PDF aad ka helaysaa waxay tilmaamayaan atheists become emotionally aroused when daring God to the terrible things bay yidhaahdeen markuu ilaahay kala hortago erayada adag emotionally uu ka cayaabay leeyihiin waxay kaloo heleen oo ay tilmaamaysaa erayga God ama ilaah marka uu isticmaalo bay leedahay isbeddelka uu ku samaynayo the same buu ku samaynaya dabeetana waxay leeyihiin waxa tani ay tilmaamaysaa afka atheiska iyo jidhkiisu inaan isku meel ka waramaynin ama si kale haddii loo tilmaamo xaggan soka buu qofku atheist ka noqdaa bay leeyihiin biologically saliska unug atheist iyo ma kala jira bay leeyihiin iyo unug maxay theist ahay ma kala jiraan waxay tilmaamaan atheismku inaanu xaqiiqo ahayn bay qoladaas ku doodaysaa qolo kale waxay leeyihiin waxaa dhaca wax loo yaqaano deathbed conversions bay leeyihiin dad loo haystay atheist oo waaweynaa ayaa marka ay dhimanayaan ee naftu ka sii baxayso ayuunbay yidhaahdaan ilaahay baanu rumaysannahay walidaalika waxay soo sheegaan maalan John Paul Sartre waa taqaaniin John Paul Sartre waa existentialist waa falsafa alwujuudiyya mulxidkii faransiiska ahaa mufakkir riwaa'iya oo filosofa falsafada existence-ka bini aadamka iyo huyuumka ku saabsiisan lahaa isaga iyo gabadhii ay saaxiibka ahaayeen gabadha waa Simone de Beauvoir miyaa la odhan jiray feminist groupka islaamihii hogaamin jiray caalamka ka mid ah iyana mulxidad kale bay ahayd ismay qabinse waa wada noolaan jireen waa wada joogi jireen labadooda waa mulxid bay ahaayeen waxay yidhahdeen markuu geeriyoonayey naftu markay qabsatayba wuxuu u yeedhay Simone de Beauvoir dabeetana wuxuu ku yidhi naa orada wadaad iigu yeedh waa ninkii noloshiisaba mulxidka ahaa wadaad u yeedh buu yidhi gabadhii way argagaxdo waxay tidhi ma adiga doonaya maanta wadaad haa buu yidhi wadaad iigu yeedh waxay tidhi haddaba qis u yeedhi maayo cardinal baan kugu yeedhaya ka weyn kuwa waaweyn mid ah ayaan kugu yeedhaya dabeetana wuxuu ku yidhi naa cardinaladu waa tuugo oo ilaahay ba khiyaamayaana kaa iga daaye wadaad yaroo miskiin oo meelaha joogo mukhlis ah mid honest ah baan rabaa buu leeyahay kuwa waaweyni wuxuudu waa bug mid miskiina ii raadi kii baa loogu yeedhay markii uu yimi ayuu Sartre qartay bay leeyihiin akhdaadiisi iyo wixiisii isagoo rajaynaya amalan fi najaah ayuu qartay bay ku tilmaamaan
waxaa ka mid a ragga ay sheegaan philosophy France ay mulxid isna ku sheegayaan ninkii riwaayiga ahaa ee Voltaire qaarna waa mulxid bay dhahaan qaarna waa may deism buu aaminsanaa bay dhahaan deismku waa dadka rabbinimada aaminsan laakiin aan aaminsanayn ilaahnimada يعني wuxuu aaminsan yahay supernatural dunida sameeyay inuu jiro laakiin laa cilaaqata lahu isaga isku mashquulay oo iska tagay dunida tanina sidii uu dhigay bay isaga socotaa waa rububiyiin baa la yiraahdaa deism waxay yiraahdaan markuu dhimanayay ayuu yidhi ha laygu yeedho wadaad baa loogu yeedhay si uu qufraanka hortiisa uga yidhaahdo wadaadkii baa laakiin wuxuu ku noqday catholic mintida oo wuxuu yidhi ilaa aad madhabka kaatoliga qirtid oo aad ictiraafka samaysid mooyaane ma kuu aqbalayo dembi dhaafka kuma aqbalayo dabeetana wuu cadhoodo intuu xanaaqu yidhi kanna iga saara bayaan buu qoray waraaq la yaqaano uu leeyahay anigu rumayn aan ilaahay rumaysnay baan ku dhimanayaa iyo asxaabtaydoo aan jecelahay iyo cadowgaygoo aan necabahay iyo inaan ka soo horjeedo khuraafaadka iyo asaatiirta iyo qurunka diimaha lagu dhex daray intaa bayaana intuu qoray ayay isagana naftu ka baxday bay yidhaahdaan waxay isweydiiyaan deathbed conversioniskan markay ka yimaadaan waxay ka sheegaan Eisenhower inuu yidhi no atheistic in foxholes bay yidhaahdaan dagaaladu markay dhacaan goobta dagaal bay yidhaahdaan atheist ma jiro yacni waa waqti alkurba waqti shidda waqti shidda maxaa loo leeyahay atheist ma jiro waxaa jira dhakhtar maraykana oo la yidhaahdo Lawrence Brown Dr. Lawrence Brown waa dhakhtar indhood oo mulxid ah hal inana buu lahaa inantii baa iga xanuunsatay buu yidhi dabeetana inantiisii oo dhakhtarka ku jirto uu yimi oo midabkeedii isbedelay oo aada u xanuunsanaysa markuu arkay inantii oo aada u xanuunsanaysa ayuu wuxuu waan quustay buu yidhi dhakhaatiirtiina waxay ugu yidhaahdeen buu yidhi ma laha waxay u badan tahay inay geeriyooto markaasaan iska tegay buu yidhi dhakhtarkan ku meeshii cibaadadaan eegay buu yidhi meelaha lagu cibaadaysto meelaha baan galay buu yidhi dabeetana waxaan idhi buu yidhi ilaahow haddaad jirto oo aad i maqlayso waan ku baryayaa isagu ma rumaysna laakiin wuxuu leeyahy if at all haddaad jirtaba oo aad i maqasho haddaad inantaydaa bogsiiso ay ii fiicnaato waxaan kuu ballan qaadayaa inaan ku baadi doono oo diinta xaqaa raadiyo oo ku caabudo waan ooyey buu yidhi markaan baryadan samaynayay dabeetana meeshaan ka soo baxay buu yidhi intaan oohintii iska bi'iyo iska soo maydhay ayaan dhakhtarka ku soo noqday dhakhaatiirtii oo farfaraxsan baan u yimi buu yidhi waa maxaa dhaco markaasaa la yidhi si aan la filaynin ayay isu bedeshay inantaada xanuunkeedii waan dul imi buu yidhi mise inantii oo wixii ka been oo fiicnaatay oo aada u waxaan rumaystay buu yidhi markaa inuu imaqlay ila markaan ka dhaqaaqay waa tii khalaaska ahayde inuu jiro imaqlay at that point baa waxaan go-aansaday buu yidhi inaan baadi doono diimaha hadda waa nin muslim ah dhakhtar muslim ah hadda madiina degan markaasaan raadiyey yacni waxay tilmaamayaan waqtiyada foxholka uu jiro ama waqtiyada dhufayska lagu jiro inaanu jirin mulxid rasmiye su-aasha isweydiinta le waxay tahay inagu kuma doodayno war mulxid matid hadduu isagu intuu isa soo taago yidhahdo mulxid baan ahay khalaas codkiisaynu aqbalaynaa waay qofka bini aadamka ah dembi uu galo waxa loogu horeysiiyaa dembiga qiraalka ah qiraalku markhaatiga uu ka horeeya hadduu qofku intuu isagu isa soo taago yidhaahdo waxaan rumaysnay inaanu jirin waxaynu la dhaqmaynaa inuu rumaysan yahay inaanu jirin shaqo kuma lihin maxaa halkiisan ka guuxaya
halkan markay joogto miyuu rumaysanyay mise ma rumaysanaa up to him isagay jirtaa laakiin maadaama isagu qirsan yahay oo leeyahay waxaan rumaysnahay inaanu jirin waxaanu la dhaqmaynaa inuu rumaysan yahay inaanu jirin kow waa maxay adiladaad wadataa baynu weydiinaynaa in Europe ayaynu soo sheegnay 18th century-gaasi wixii ka horeeyay waxay yidhaahdaan Europe waxa yaalay waxa loo yaqaano inatism fikradii Europe ku aaminsanaa inatism ko waxaanu idhaahno alfitra qof waliba inuu ku dhasho isagoo Ilaahay rumaysan fikraddaas ahayd fikradda caanka ee dadku aaminsan yahay xataa bay yidhaahdaan saynis yahanadii kiniisadda ka fogaadee ka durkay waxay u badnaayeen scientific community-gu kuwa Ilaahay jiritaankiisa aan diidanayn laakiin uu arkayay not necessary in nolosha laga qayb galiyo taariikhda hore markaynu dib ugu noqonana waxaynu nidhi dad yar oo Epicurus uu ka mid yahay iyo wixii la halmaalay ayaa mas'aladaasi rumaysanaa oo macdalat shar iyo wixii la mid ah waxaan isku dayay iyadana wax yar oo kooban inaan ka idhaahdo al-ilhaad al-mucaasir ilhaadkan cusub maxaa keenay maxaa sababay in dadku mulxidiin noqdaan dhowr sababoodba waa jiraan dhowrka sababood aan sheegayno midi waxay ku saabsan tahay waa sababo inta badan Yurub ku gaar ah waxay Yurub ugu gaar yihiin waxa weeyaan medieval period-kii waqtigii la joogay quruntii dhexe Yurub asaaska cilmigu wuxuu ahaa kitaab al-muqaddas Bible-ka kiniisaduna waxay qaadatay aaraadii Aristo iyo Ptolemos culimada carbeedna ay u qoraan oo ku saabsan kownka iyo siduu u jiro universe-ka dhulku inuu taagan yahay cadceedda iyo planetska iyo xiddiguna inay dhulka ku wareegayaan iyo aragtiyo kale waan cilmina sheegaynin laakiin ay ka soo deduce gareeyeen fahamkay u fahmeen kitaabkooda oo sheegaya dunida in la abuuray 404 sano qabla al-miilaad inay baabi'i doonto 404 sano bacda al-miilaad ciise hortiina 4004 sannadood bay jirtay ciise dabadiina waxay jiri doontaa maxay 4004 sannadood waa creationist qoladan imka la yiraahdo inta qaybo badan oo kamid ah waxay rumaysan the young world bay yiraahdaan dunida da'da yar leh waxay rumaysnaayeen oo qaateen caalamka mar qura in Ilaahay wada abuuray oo evolution kan iyo waxan inaanu jirin evolution ka Darwin oo qura ma hatta kan physics-ka ah ee sheegaya big bang kan iyo waxan kala dambeeyay waxa soo dhamay inaanu jirin waxay rumaysnaayeen dunida oo dhami inay qaayo iyo xikmad ka dambaysa leedahay qaayaadka iyo xikmada ka dambeeya midalan jeegaantu qowska sax waxay yiraahdaan waa ballankii Ilaahay uu ballan qaaday nabi Nuux inaanu dunida mar dambe biyo ku halaagaynin ay jeegaantu sheegaysaa waxay qaateen xasharaadka iyo maxaa la yiraahdaa masaska iyo waxan yar yari waa ciqaabtii khati'adii aadame hore waxay qaateen diintu wadaadku Ilaahay inuu isku xidho dadka oo aanun cidna loo dhaafaynin dambiga ilaa iyo wadaadku u dhaafa mooyaane waxay noqotay sultadii diiniga ahayd iyo cilmiga ahayd ba gacanta wadaadka ku jirtay
wixii ka baxsani waa shacwadiyo sixir oo wixii intaa ka baxsani waa shacwadiyo sixir dabeetana medieval periodka waxaa bilaabmay aragti cusub oo sheegaysa cagsiga oo ay wadaan niman wadaadana ah aqoon-yahanana ah Galileo ninkii la odhan jiray iyo Copernicus ninkii la odhan jiray labaduba waa laba wadaad diin ahaan marka la eego waana laba aqoon-yahan Copernicus waxaan odhan karnaa fikraddii markaa la hayay wuu dabagadiyey oo wuxuu yidhi cadceedda taagan oo kuwan kala maxay ku wareegaya marka cadceedda markasul kawna fikraddii hore maxay lahayd dhulka ah markasul kawna waxa kale ku wareegaya wuxuu la yimi fikrad odhanaysa cadceedda ayaa ah markasul kawn oo inta kaloo dhami ku wareegaysa Copernicus fikraddan xaguu ka keenay ee tii Ptolemaios ka soo horjeeday kiniisadu qaadatay Ptolemaios مثلا masaladu qaatay hore waxa uu soo buriyay caalamul islaami مثلا ibn al-Haytham wuxuu leeyahay kitaab uu ku tilmaamay 16 ceebood ay leedahay Ptolemy theory inuu dhulkuna taagay kuwa kalena ku wareegayaan 16 mas'alo keenaya uu leeyahay 16 ka mas'alaba way burinayaan laakiin ra'yi cusub oo kale muu tilmaamay waxa kaloo ka mid ah raggii la yiraahdo buukiskiisuba way soo gaadheen ninka kan Nasiruddin Tusi ama Nasiruddin Tusi ninkii la oran jiray Nasiruddin Tusi waa cilmiga astronomiga la yiraahdo dunidaba dadka ugu waaweyn lagu ixtiraamo ka mid yahay xawaalay waxaan filayaa 150 kitaab wax ka mid ah inuu qoray waa nin markii hore raafidi ahaa shiicada 12 ahaa markii dambana Ismaaciili noqday sida ay sheegaan waa wasiirkii koowaad Holako Baghdad markii la qabsanayay Tatarku ahaa wasiir Holako wasiirkiisa ahaa Ibn al-Alqamina markuu xaga kale wasiirka ah labadii nin isfahmayay wuxuu Holako taariikhda sa ku haysan meel la yiraahdo qalcatu almut oo ay shiicadan Ismaaciiliyada la yiraahdo deganaayeen ayuu khiyaameeyo wuxuu yiri soo wada kale iyo waaridan abaal marina waa kan hadaal baba adigu uu mariyay dhamaantood uu xaaqay ninkan oo aqoon-yahana ayaa la yiri ninkan waa aqoon-yahan uu kala soo haray wasiir buu ka dhigtay ninka kani markii Baghdad la qabsaday buugaagtii wixii la gubay mooyaane ilaa 400,000 oo kitaab wax ku dhadhow buu qaaday faraaqa meel la yiraahdo oo dawalkan yareemka ka go'ay raashinka kamid buu awal marsad caalami ka sameeyay meel xidiga laga saadaaliyo ugu weyn dunida markaasi dhowr boqol oo culimadii caalamul islaami joogay oo dhan uu soo ururiyay ninkan Holakana uu soo dhaweeyay dabeetana meeshaas wuxuu ku sameeyay buxuth badan oo aad hadda loo ictiraafsan yahay oo ay kamid tahay al-masduja ama in mathematics sada gashaan waxa la yiraahdo tusi kabal baa jira tusi kabalku waa laba daa'iro laba circle oo isku dhex wareegaya oo circle-ka hoose uu yahay circle-ka sare nuski radius-kiisa uu leeyahay oo as a linear waxa sameynaya ala kulli xaal waa fikrad uu ku tilmaamayo inuu ku buriyo Ptolemy fikradiisa oo tan kale ku adeegsado Copernicus waxay yiraahdaan in ninka buugiisu soo gaadhay waxa uu daliilay bay yiraahdaan koow sawiradu qoray laftoodii buu sawirayaa bay leeyihiin laba alfabetisku isticmaalay laftoodii buu isticmaalaya hatta angaliska markuu sawirayo meeshuu a u bixiyay kana a buu bixiyay meeshuu ba u bixiyay kana b buu bixiyay alfabetku hatta isticmaalay bay leeyihiin waa alfabetkiisi waxay ku tilmaamaan markii ninkan buugiskiisu waxay yaaleen bay yiraahdaan Qustantiniya markii Qustantiniya muslimiintu qabsanaysay ayuu buugu Vaticanka u talaabay dabeetana ninkan Catholic buu ahaa xaggaas uu buugu ka soo gaadhay whatsoever Copernicus fikradii uu balaariyay waxaanu ka dhigay fikrad cusub oo sheegaysa dhulkuna inuu socdo cadceeduna inay taagantay horta now physics-ka maanta jooga labada fikradoodba waa been
tii lahayd dhulkaa taagan oo inta kale ku wareegaysaana waa been tii lahayd cadceeddaa taagan oo inta kale ku wareegaysaana waa been labada midna sax maaha hadda laakiin waxaynu ka warramaynaa taariikh wuxuu taagnaa markaasi in buuggaas buu qoray buuggaasi markaa waxaa loo arkay inuu ka horjeedo bibleka sidii ay u sharxeen nimankii gacanta ku hayay oo iyagu haystay fikraddii aristo iyo Ptolemy Galileo telescope buu sameeyey telescopekii uu sameeyey wuxuu fudaydiyey inuu wax badan la arki karo dabeetana wixii uu ninka kani calculationka ku sameeyey ee uu yidhi markaan calculate gareeyey saasaa saxa ayuu Galileona leeyahay aragtiduna saasay waafaqsantay oo practically baa loo arki karaya oo sida tan baa saxa Copernicus buuggiisa lama daabicin ilaa uu ka dhintay sanadku dhintaa la daabacay Galilena waxaa la saaray maxkamadda waliba wadaadkii markaa boobka ahaa saaxiib bay ahaan jireen oo isku wadaaday ahaan jireen isaga waa loo khafiifiyey waxaa lagu xukumay ictiraaf horta inuu ictiraafo ka noqdo ictiraaf qasab u saxeexay kadibna xabsi guriyeed xabsi daa'ima intuu dhimanayo inuu guriga ku jiro ilaa intuu dhimanayo raggii fikradaha qaatay Bruno isagoo nool baa la gubay isaga waxaa la yidhi dil dab ah in dab lagu gubo fikradahaasi waxay keeneen inay kala fogaadaan ciddii science danaynaysay iyo ciddii diinta haysatay haddana Yurub waxay bilaabatay wixii la odhan jiray enlightenmentka casru tanwiir renaissance-ka waqtiga u yaqaaneen enlightenmentku waa falsafad sheegaysa in caqliga la adeegsado oo awal Christianity waxay ku salaysnayd aamin oo rumeeyo raac wixii uu kitaabka ku qorayay laakiin qoladani waxay la yimaadeen enlightenment theory oo ah in caqligu bini'aadamka hago fi ay majaal dhib cusub baa soo baxday caqligii markay ku isticmaaleen kitaabkoodiina waxaa ka soo baxday ceeb cusub oo sheegaysa taariikh ahaan kitaabkan inuu munxarif yahay in taxriif uu ku jiro inaanu taariikh ahaan sugnayn sidii la isugu soo dhiidhiibay in la soo saaro versions kale oo aan king version ka ahayn inay timaado kanaysta qaybo ka mid inay qirtaan jusas ka mida kitaabku inaanu kitaabkaba ka tirsanayn مثلا protestant iyo catholic waxyaaba u dhaxeeya maxaa ka mid ah catholic buugooda wuxuu ka kooban yahay 73 buug protestantkuna wuxuu ka kooban yahay maxay 66 waa adigoo yiraahdo quraanka 7 jis kuma jirto 23 baanu haysanaynaaye intaas quraan maaha protestantku 7 ka mid ah bay leeyihiin kama mid ahaba kitaabka waa been abuurad kale oo lagu daray intaasoo qura laguma koobine waxaa soo baxay versions kay protestantku haysteen laftiisa la yidhaahdo chapter hebel min verse hebel ilaa verse hebel kama tirsana oo qaarkood laga saaro waxaa soo baxday مثلا 7 ka mid ah aqoon-yahanadoodii Jarmal inay buug qoraan maqaalad wa muraajacat la yidhaahdo oo buugga Darwin intuu Yurub ka sameeyey buug in ka badan ka sameeyey oo diinta dhexdeedii idan casru tanwiir laba shay baa soo baxay waxa soo baxay waxay wadaadadu sayniska ku sheegayeen ee kitaabkooda ka soo tarjumeen saynis ahaan inaanu sax ahayn ee kuwan ay laayeen inay ka saxsanaayeen waxa kaloo soo baxday kitaabkan ay hayaan taariikh ahaan inaanu sugnayn marka saynis yahanadii waxay u waacdeen kow sayniska hal la aamino kitaabkan yaa la aaminin ilaan qadiyad hebel buu sheegay qadiyad hebel buu sheegay qadiyad hebel buu intubana scientifically baa la disprove gareeyay oo sax maaha sadaradeed hadduu Galileo wuxuu ku doodayay waraaqdu uu qoray boqoradda waxa ka mid ahaa iyo nimay saaxiib ahaayeen Benito waraaqdu uu qoray wuxuu lahaa the works of God and the book of God isma khilaafi karaan buu leeyahay kownka kani waa shaqadii ilaahay buu leeyahay waa ilaahay wuxuu qabtay camalkiisii buuguna waa ilaahay hadalkiisii
ma suurtagalaha buu leeyahay labadaasi inay iskhilaafaan ee haddii ay jiraan wax isweydaarsani waa in si uun la isu waafajiya ama innagaa qaldan saynu wax u fahamnay laakiin macquul maaha buu isagu taagan yahay in buugga ilaahay iyo shaqada ilaahay inay iska hor yimaadaan macquul maaha buu leeyahay haddii erayadani kuwii ilaahay soo dejiyay yihiin buugganina shaqadanina ay tahay buuggii yani camalkii ilaahay sameeyey waxaa kaloo soo baxday bini aadamku inuu technologigiisu horu maro 1595 baa awal microscope la soo saaray microscope-kii waxaa la arkay germs yaryar iyo bacteriyaad iyo wax wadaadada qaarkood awal waxay odhan jireen waxaan idin hayee xanuun oo dhan shaydaan baa idin dureeyey waa jibanka iyo shayaadiinta iyo beledaasaa ka qaadaan haddii kitaabka lagu akhriyana waad iska bogsanaysaa qoladii sayniskana waxay dhahaan war shaydaanna ma duraynine bacteria heshay oo bahalladan meesha marmaraya ayaa ah waxa sameeyey iyana waxay noqotay wax cusub oo qoladii diinta wadatay iyo ay ku kala khilaafsan yihiin idan qoladii diinta wadatay ama yurub diintii taallay diin kale maaha tii yurub taallay iyo science community way iska hor yimaadeen iska hor yimaadkaasina wuxuu dhalay science community inay ku qancaan kow wixii ay science ahaan u sheegaysay ay lahaayeen kitaabkaa sheegay inay been tahay oo aanu sax ahayn ilaa fikraddii aristo iyo botelmi bay ka dhigeen inuu kitaabku sheegay tii waxay leeyihiin absolutely dee annagaa telescope-ka ku aragno waa wax ishu aragto absolutely wax la rumaysan kara maaha waxaas baa ilaahay ka yimi maaha sax bay leeyihin second to that waxaa timid kitaabka laftiisii in godoloolo loo sameeyo oo kuwii aaminsanaa laftooda ay u sameeyaan marka waxay noqotay inay diin oo dhan ka fogaadaan diinka fogaadkii laba qaybood buu noqday qolo deism qaadata waar ilaah supernaturally waa jiraa dunidana ilaah la-aan ma soconayso walaakiin kiniisadda iyo kitaabkeeda iyo waxaana waxba kama jiraan iyo midhadh u baxay xagga ilxaadka oo iyagu leh dunidu iyadaa isugu filan tafsiir iyada gudaheeda yaan la raadinin tafsiir khaarijiya sharax dabadeed explanation outside it ma jira bay leeyihin within it baynu ka raadinaynaa how to explain sida loo sharxayo gudaheedun ha laga dhex raadiyo isxaaq newton ayaa la yimi fikraddiisii isaguna gravitational theorygiisii motion theorygiisii waxyaabahaasi wuxuu keenay isaguna waxay ku tilmaamaan the mechanical world ama alcaalam almekanikiy dunida tani inay si mechanical oo automatic a isaga soconayso waxaan isaa wada shaqaynayaan in yaroo calculationskiisii ka mid ah ayaa u saxmi waayey planetska wareegoodii oo aanu iyaga gravitationkii u dhexeeya ku xisaabtamin dabeetana wuxuu yidhi meelahaana ilaahay baa soo farageliyo marka ay istidhaahdo inxiraaf ka yara bax meeshabana waa lagu yara celiyaa sidii saacaddii la buuxin jiro kale saacaddii berigii hore soo lama buuxin jirin marka yara gaabisa maxaad samayn jirtay dabaduma dee marka laga soo yara eri jiro haddana mudday sidii u shaqaynaysay waa just like that buu yidhi markay orbitkeeda muddo wareegtay istidhaahda ka baxba ilaahay baa dabada ka buuxinaya buu leeyo way hagaagaysaa dabeetana lablas baa yimi aqoon-yahan faransiisa calculationskii newton in wax ka qaldan yihiin buu arkay wuu saxay wuxuu yidhi waar ilaah dabada ka wareejinayana ma jira sideeday u shaqaynaysaa adaa calculationkaagu qaldanaa waa mechanical world dunidani saas buu rotationka u soconaya wax waliba saasay u soconayaan uma baahna faragelin dabadeed yurub markaa waxaa ka bilaabmay waxay ku tilmaamaan cibaadat alcaql ama in caqliga la weynweyneeyo xadkiisa la dhaafiyo intaa waxaa raaca oo dhibta sii dhigay wadaadadii markii laga xoog batay iyana waxay bilaabeen maxaakimu taftiish boqortooyaduna gacantoodii ku jirtay diinta iyo suldadiina iyaga haystay wixii waxaa ka soo horjeeda in la laayo
maxaakim la yidhaha maxaakimu taftiish bay bilaabeen oo qofka yidhaahda dhulkaa wareegaya waa la saaraya waa dil waliba dil aanu dhiiggiisu dhulka u dhicin dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa in la gubo adigoo nool baa dabka lagugu gubaya markaasaa waliba waxay yidhaahdaan qaarkood hartaqa waa bidca yani hartaqa hartaqaadka ay ku xukumayeen waxay yidhahdaan qofka la dilayo tiirka lagu tiirinayo saliibkii looxaaga lacagtiisa adaa bixinaya looyarka iyo qaadiyiinta lacagtoodana adaa bixinaya haddii qaarkood waxay ku xukumeen kuwa mubtadacaad ahay kuwa yaryara ay dhaleenna waa bidco yaryaroo soo koraysa iyagana ha la laayo carruurtoodana qaar baa la leyn jiray laakiin mowtu raxma bay idhaahdeen geerida naxariista le iyada la leyn jirayo sanduuq biyo ku jiraan baa kuwa yaryar iyaga lagu ridi jiray isaga lama gubayo sidan baa loo dilayaa hadduu ka toobad keeno yidhaahdo bes dhulku wuu taagan yaho wareegi maayo toobaddaasi waxay kaa badbaadinaysaa in lagu gubo laakiin dilka waad leedahay waa lagu dilayaa mar kastaba taasina waxay sii noqotay in ay badato colaaddii ay isu hayeen nimanka wadaadada ah iyo nimanka saynis yahanada colaaddii ay isu hayeen waa sii xoogeysatay aqoontii bini aadamkuna waa soo kordhaysay siiba intii isha bini aadamku ay kobocday yani bini aadamku aqoonta sayniska waxay isku dayeen inay wax walba wax empirical practical oo la arki kara ay noqoto dabeetana bini aadamku wuxuu tadwiiriyey ishiisu inay meel fog wax ka arki karto oo ama ha noqoto telescope iyo baaladan waaweyn ee cirka iyo dayaxa iyo xidigaa lagu eego ama xataa hadday hawadu yaro qasanto in gantaalla la diro cirka loo sii saaro oo telescope-ku intuu cirka sare tago soo waa in aragtida la ballaadhiyo ama ha noqoto waxan yaryar waxan lagu eegayo oo maanta axmed zuweylkii masriga ahaa muxuu ku qaatay dee waa femtobuu ku qaatay nobel prize baa la siiyey waaxid masriya axmed zuweyl la yidhaahdo california university ka tirsan axmed zuweyl nobel prize wuxuu qaatay hal second oo loo qeybiyey 10 to power of 15 of a second reaction ka dhacaya inuu sawiri karo kana kamera lagu sawiri karo speed ka ah femto waxa weeyaan kun maaha oo million maaha oo billion maaha oo trillion maaha waa over trillion waa 15 waa second loo qeybiyey 10 to power of 15 يعني هل second intaa loo qaybiyey timeka intaa leeg reaction ka dhici kara ayuu sawiri karaa reaction ka dhici kara buu sawiri karaa dabeetana Nobel Prize baa lagu siiyey marka bini aadamku wuxuu joogaa hadda xad uu isku dayayo inuu fahmto wax ku sawiro reaction ka intaa dhici kara inuu sawiri karo iyo marka ishii xagga yaraantana waa u socotay ilaa ay wax aad u yar arki karto xagga weynaantana waa u socotay ilaa ay arki karto wax aad u fog taasi waxay ka dhalatay markaasi inay soo baxdo aqoon badan oo cilmiyeed haddana weli su-aashii waa taagan tahay waxay leedahay science oo dhan isku soo dar ilxaadku ama atheismku ما مدلل بامس هو معلل مدلل يعني ما ريسن وحو طبعا من راشنال با مسماها وهي مانتا dadka atheismka aaminsan aad bay u qayliyeen aad bay u buuqeen aad bay isku dayeen inay u faafiyaan حد بيقاردي واقي هوري قفكوا ملحد إن لا يراد يوروب عيب بيهي إنسلت عيب بيهي ويصوت تطورتي
ilaa hadda waa la isku xaqiraa maalan maraykan xaqiraadu xadkay gaadhsiisnayd gobollada qaarkood north carolina oo kale markhaatiga ma galo dastuurkoodu siduu qorayo mulxidku waayo waa insaan xaqiir ah oo markhaatiga ma galo arkansas oo kale baan filayaa inaan loo dhiibi karin mulxidka any public offices inaan loo dhiibi karin qof la xaqira buu ka ahaan jiray yurub waagii hore laakiin imika waxay isku dayeen inay bedelaan marka imika waxaa jira niman la yidhaahdo wall street maxaa la yidhahdaa wall street journal waxay qortay militant atheist malaysia lilxaad niman la yidhaahdo waa richard dawkins waa christopher waa maxaa la yidhahdaa sam harris waa maxaa la yidhaahdaa waa groupkan waa group uu ku tilmaamo alvan balantiga waa filosofka christianityga maraykan ugu weyn alvan balantiga wuxuu yidhi bay yidhaahdaan kuwa dambe buu yidhi atheisiskan dambe way ka daliil yaryihin buu yidhi atheiskii philosopherskaye hore but they are more noisy than them buu yidhi way ka dajiij iyo qayle badan yihin way ka buuq badan yihiin groupkan dambe waxay isku dayeen kow waxay idhahdeen homosexualitygaba magacii waa kii laga bedelo guy si loo bixiyey magac fiican guygu dee in english waa taqaanin waxaa la yidhaha qof faraxsan oo caynkana marka horta magacan aan bedella bay yidhaahdeen waxay la baxeen hadda the brights waxa la yidhaahdo 2001kii meelaha mise 2003 bay socdaa banaanbax weyn baa maraykan laga sameeyey oo ay u bixiyeen community of reason dabeetana way wadeen magaca the brights bay la baxeen iyagoo isku tilmaamay inay yihiin community of reason kaasi oo dad caqliga isticmaalayo caynkana lacag bay ka heleen iclaamkii tirada badnaa oo bookskooda qaarkood dhowr milyan baa la iibsaday maalan God Delusion waxaa la iibsaday more than 2.5 million copies ayaa laga iibsaday yacni buugga quru milyaneer ku soo noqday isna si uu waxa kan u hirgeliyo Richard Dawkins wuxuu qaatay London gaadhiga cas ee baska cas ee London in lagu dhajiyo iclaan ah waa tan iclaanaadka la kiraysto dabeetana wuxuu qaatay iclaan la yidhaahdo إعلانkiisa meeshan ku qoray إعلانkiisa uu ku dhajinayo bahalkaas waxa la yiraahdaa enjoy your life probably there is no god إعلان la yiraahdo buu lacagta dawladda hoose siiyay dabeetana baska cas ee London buu hareeraha kaga dhisnaan jiray noloshaada ku raaxayso hubanti waxa inaanu ilaahay jirin waxay leeyihiin in badan oo doodahan TV-yada iyo iclaamku aad loogu tiro badiyay waxa soo dhamay waxay keensadeen inay imika aad loo xiiseeyo ama aad loo buunbuuniyo si loo faafiyo u noqdo haddaba insha Allah after break waxaan isku dayi doonaa inaan ka warramo islaamka ama diin ama qur'aan maxaa u arkaa qadiyadda tan science-ku muxuu u arkaa kadibna argumentiskaynu toos u geli doonaa maxaa argumenta maxaa dooda ee qoladani daliishanaysaa doodanse maxaa kuwa kale ku burinayaan laakiin doodaha kani waa dooda iska adag waxaan jeclaan lahaa inaa aynan degdegin waana laga yaabaa su-aalo badan oo dhallinyaradu qabto inaan markaa ka jawaabi karo haddii ay la garataan argumentiska kani waxay yihiin iyo qaabkaynu soo bandhigi doono marka aan hadda halkaa ku joojino sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam